arrintaa imika dhacday waxa weeyaan fartu dadka ma wada gaadhin fartu meel bay ku qalloocdaa meesha ka soo jeeday ku qalloocdaa arrinta isku sheegno muddana waa la dhowrayo nabar la dhowrayay bay ahayd saaka suldaanbaada waxaan ku yidhi cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantahay marka waxa weeyaan waxa laakiin nasiib wanaaga arrintu sida warbixin badan oo helay meel kaliya hatay ku egta meeshii cagteedii waa lagu joogaa arrintu way dhowdahay waxa weeyaan dadaalkeedana ha la galo ciidanka dadaalkeeda ha la galo arrintaa ha la soo afjaro laakiinse mid baa jirta arrintani sida ay u dhacday waa in sinan gaaray noqotay laakiinse waddanka awdal waxyaabo badan oo horumarkii dhaawacayo oonan dhaqan inoo ahaan jirin baa socda mid yidhaahda waxbaan xoraynaya mid yidhaahda waxbaa moogta balaayo kalaa jirta anigu maalin hore halkan waxaan ka yidhi waryaadeen reer awdalow wasaan u dhaqmayna waxbaan ka yar dareemay khaldan baa jire daadaan dawo soo iibsanoon moogtahay reeraha buufina kale ha dhammaadana innakuuna caalamkaan u hadhnee ama hadda innakuaan isbuufina hadlayna waaye war haddii kale dadkaan la dhaqan dhamayn dhaqankii waxba inaga khariban waxaan ku soo gabagabaynayaan leehay niman yahow ummaddan nabadgelya haysataa tacliim bay haysataa wax ka maqan ma arkayo malihii wax gaar laynoo siiyey laakiinse nabadgelyada waxayna siisay jaamacaddaasi ma jirteen haddee nabadgeli jirin maalin dhaweed ceelaf weyn baa ka yimidday ceelaf weyn sidana mashruuc biyo ugu socday oo laga soo qaadayay 230 kilomitir innaka waa maagteenne mashruucii oo la bilaabay iyo waalidii ka bilaabantay mashruucii halkiiba ku dhintay meel kale loo wareejiyey warrawaadii ayaa saakada waa layla soo hadlay SDF way shiraysay saaka war sidee biyo laga yaraaba la yidhi biyaha waxaan dhihi moogtahay wixii dambiilaana gacan biraa saaraynaa ma dhihi laakiinse dambiyaha dadkaa u baahane dadku ma wada geysanine yaa halkeedaa ka socoto laakiinse halkeedaa ka socota badanka ma noqonayso runtaan idiin sheegaya danta haddaan ilaashan weyno laynoo ilaalin maayo waxaan idinku celcelinayaan idinlaah war waxbaa inaga sidan inta dhow waxbaa inaga siye aan tashanno waxa laga qabto wax practical ha laga qabto suldaan baadi arrintan waa mid arrin kala jirta waagi dhow halkan markaan imid waxyaabo badan baan dareemay gacantii aan wax ku qaban lahayn yaa naaqis ahayd halkaas kulmal inaga soo juqeeya xadka waa horaan dhabayn lahayn laakiinse courage iyo moogtahay waxaan laanahay moogtahay kartidii waxaan ku qaban lahayn waxa weeyaan arrintii kale nafaateeda waa inaa gacan xooga lagu qabtaa halkan suuqa dhexdiisa iyo kuwa moogtahay xagga ka maamulay ay joogaan gacan biraa lagu qaban imika waan dhaadhaafi jiray waagii hore waan ogahay dad badan ka halkaa jooga aabbihii iyo hooyadiiba halka fadhiya uurkaa laga wada socdaa inta oo ku dhambaa maxbuus laga wada dhigi markaasaad ogaan doontiin inay nabadgelyada iyo moogtahay loo baahan yahay ma dheeraa ku wada guraynaa runtaan idiin sheegaya been isku sheegi mayno dhuuntii dadka biyaha looga keenaya halkaa weeyaan innakaa dhaawacnay runtaan idiin sheegay ma wada qaban dadku waa innaka dadka la kari laaya dadka waxa weeyaan waan iska qabanayna kulka dad waxaan oo kale sida ku sii socon mayso dariiqii halkaa ninkii gudoomiyaha ka haya keenay waagii hore moogtahay mashruuca la hogaaminayay Mansour Hotel baan habeen hore wada joognay bisha 31 ayaa in moogtahay shirkadii sameynaysa doorta la soo saaray ay tahay laakiin marka wax yar la maqlo waxa weeyaan caalamka waxa la saaray hay'aduhu yalow hurdi casaan baa la saaray wixii yaraa dhicibaba nuqdad buu kordhiyaa taan nafaateed dareen bay abuuraysaa war waxa weeyaan ummadda si badan oo biyaheedii heshay
وإلهي سماه هو كيري موقتها طريق دي جبوتي لها كان إنه سوى اسمه وإياه كل عيار يسانو يقنا أرنتها وحن لاهي رينا وضلوا جود هاببا وسوي جيستا هؤلاء إنا قعان بين الله صار قارهانا كوينا كوكالو عتاب مجاهدين تا يا وحرينا يوم يا runta aan isku sheegno shaqo wayna qabanaa waad bahasantihii